salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal dhegeystayaal qodobada warkeena ugu doorka roon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo la kulmay madaxweynaha jabuuti, gudoomiyaha aqalka sare oo dalka dib ugu soo laabtay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud, waqooyi kuuriya oo jawaab culus ka bixisay xayiraada maraykanka oo saaray saraakiisha Pyongyang, taliska amisom oo sheegay in howlo ka dhan al-shabaab ay ka bilaabi doonaan jubbada hoose. qodobadaasi oo qodobo kala idin qariirino ayaa barnaamijkeena ku maqli doontaan hadduu eebbe idmo. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka u magacaabay mudane cabdi aadan huusow. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska mudane aadan isaaq ayaa warbaahinta qaranka ka akhriyay wareegtada lagu magacaabay wasiirka oo ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. cabdi aadan huusow ayaa hore u soo noqday gudoomiyaha gobolka bay, wuxuuna sidoo kale xilal kale ka soo qabtay isla gobolkaasi, iyadoo xukuumadda washington ee xayiraad ku soo rogtay saraakiil sare oo ka tirsan Pyongyang ayaa jawaab kulul waxa ay ka soo baxaysaa kuuriyada waqooyi oo ka walaacsan go-aanka maraykanka. dowladda kuuriya waqooyi ayaa waxay soo saartay digniino ku aadan xayiraada maraykanka, iyada oo sheegtay in ay sameyn doonto arrimaha la xiriira barnaamijkeeda nukleerka. madaxweynaha maraykanka Donald J. Trump ayaa cunaqabateyn cusub kusoo rogay 3 saraakiil oo ka tirsan xukuumadda Pyongyang, wuxuuna wacad ku maray maraykanka inay xanibi doonaan hantida Geo oo ah nin si aad ah ugu dhow Kim Jong-un. wasiirka amniga Jong Kyong iyo sarkaalka dhanka dacayadaha u qaabilsan dowladda dalkaasi kuuriyada waqooyi Park Kong, taasi oo sare u qaadi karta khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markuu dalka turkiga kaga soo qayb galay shirkii loogu magacdaray masjidul qudus, kaasi oo looga hadlayay arrimaha falastiin iyo caasimada qudus. wafdi uu hogaaminayay cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey labadiisa ku-xigeen iyo xubno ka tirsan golaha aqalka sare. gudoomiye cabdi xaashi ayaa soo dhaweyn kadib wuxuu ka warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay shirkii uu ku qayb galay magaalada istanbul ee dalka turkiga. waxa uuna sheegay in la isku afgartay in meesha laga sii ambaqaado qodobadii muhiimka ahaa ee shirka ka soo baxay muddada soo socota hadduu ay beydmo. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed ayaa magaalada jabuuti kula kulmay madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti ismaaciil cumar geyle. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo madaxweyne ismaaciil cumar geyle ayaa ka wada hadlay xiriirka walaaltinimo ee labada dowladood iyo labada shacab iyo arrimaha gobolka iyo amniga. mudane mahdi maxamed guleed ayaa madaxweynaha jabuuti uga mahadceliyay taageerada jabuuti la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliya.